Assalaamu calaykum akhyaarta waa salaam kusoo dhawaada 4kfile.com. maanta waxaan tusiyaa application aad ka daawan karto filmanta movie-ga ayagoo free ah taleefankaaga Android-ka. waxaad sameynaysaa linkiga video description-ka ayaa click siinaysaa. markaad click siiso page-kan ayuu ku keenayaa. page-kan markuu ku keeno waxaad sameynaysaa hoos ayaad u soconaysaa, meesha ay ku qoran tahay download ayaa click siinaysaa. markaad click siiso page kale ayuu ku furayaa again. download ayaa leedahay again. download ayaa leedahay mar saddexaad. sidaad aragtaan downloadka waa uu noo socdaa. hore ayaan u download gareeyay, marka stop ayaa leeyahay. waxaad sameynaysaa meesha download folderka ayaa tegaysaa, waxaad click siinaysaa download. sidaad aragtaan waa kana fileka, click ayaan siinayaa. okay, setting ayaa haddana click siinaysaa. markaad setting click siiso meeshaan ay ku qoran tahay unknown source, meeshaas ayaa click siinaysaa. meesha ayaa click siinaysaa, okay ayaa leedahay again. install. marka uu noo dhameeyey open ayaa leenahay. sidaad aragtaan applicationka marka uu noo furo interfacekiisa aad ayuu u qurux badan yahay. haddii aan kor fiirino wuxuu leeyahay 3 tab: movies, tv show iyo animation. haddii aad cartoon waxaad u baahan tahay animationka, haddaad tv show iyo barnaamij tv show u baahan tahay inta ayaad click siinaysaa. haddaad u baahan tahay filmaantana halkaan ayaa click siinaysaa. haddaan kor fiirno dhinaca bidix, aan dhinaca furno waxaan arki karnaa genre iyo downloads, genre, action iyo waxaas wixii lamid ah. okay, hal film ayaan browsinaynaa. for example tag ayaan click siinaysaa. markaan tag kala siiso 3 option ayaan haysanaa. optionka koowaad oo ah inaad filimka aad dhihi karto micnaha favorite, aad hadhow aad micnaha mar kale aad daawan karto, iyo inaad play aad dhihi karto filimka, iyo inaad hadda filimka play dhihi karto. click ayaad siinaysaa calaamadaas oo play ayuu ku leeyahay. haddii aad rabto filimka mar kale inaad download aad samaysana, downloadka ayaa click siinaysaa. okay, hadda waxaan rabnaa filimka inaan daawano. for example play ayaan leenahay, meeshaas ayaan click siinayna. play ayaan leenahay. marka wuxuu na siinayaa quality. okay, sometimes waxaa arkaysaa ilaa 4 5 links. midba mar ayaad click siinaysaa, midka linkiga kuu shaqeeyo ayaa filimka daawanaysaa. hadduu mid qualitygiis xun yahay kale ayaad daawanaysaa, hadduu mid kale ku shaqeeyo mid kale ayaad socon. hadda waxaan baraaweynayna linki 9, click ayaan siinaynaa. sidaad aragtaan filimka waa uu noo shaqeeyey. haddii aan filimka xoogaa mootiyo, aragtaa filim qualitygiisa aad ayuu u qurux badan yahay. haddii aan rabno filimka inaan download aan sameynana, waxaan click siinaynaa calaamadan downloadka si aad u daawato offline oo mar kale aad u daawato. sidaad aragto downloadka waa uu noo socdaa. hore ayaan click usii download u sameeyey, laakiin downloadka waa uu socdaa. meeshaas ayaad ka arkaysaa. haddii aad rabto downloadka inaad aragto meesha oo ka socdo, waxaad tegaysaa download page-ka. waxaad aragtaa filimka download ayuu wadaa. akhyaarta haddii aad ka hesheen tutorialkan, please like the video, subscribe and share.